الو. اه. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاجات شوكتي احمد. والله لو دوينا نبي في دوي. هي maxaad ka doonta? iyo meeshii gobolkiiba waxa ku ciyaaray ninkan kubadda saabka la yidhaahdo dadkiiba madaxa isla galay dad deegaanka ka udhayay. haye laba jilib oo marka hore isku haystay meel ceelaba jilib saddexaad oo isna la reeraha un waxba isbi kala qabo eerka u dhex galo. haye dan ninkii badda saabka intuu soo cararay waxa weeyaan ayuu jilibkii ergadahaana xidhxidhay labadii haye kale isku haysteen isu daayay inay is haystaan ka udhay. waraxay waalidil haye dabeetana iminka waxa weeyaan jilibkii labadii jilib meesha isku haystay weli lama kala dhex gelin looma garqaadin iyagii xitaa lama xidhxidhin waayo dee iyagiina weli meesha isku haystaan way isku bororsanayaan iminka dhanka kale jilibkii kale ergada ahaa ee dadkii way si la xidhxidhayna waa xanaaqayo isna hadda waa huburursi bay ku jiraan saddexdii reer ama huburursi doonta oo wax leeda meesha faran caadi isu bedelaysaa farana caadi isu bedelaysayo musabix iyo badha saabkan musabix ka dambeeyaan filayaan iyo waayo dee amarkiisa ku shaqaynayaan halka ummadda kala qaba maxaa weliba cidda ergada xoojin lahaa buu ergadiina ka xidxidhay iyagiina isu daayay waa shax laga dambeeyo dhe waa shax laga dambeeya u muuqataayo in diiwaangelinta imika gobolka ka socota lagu khalkhadgeliyo iyo in reerkaa la isku diro ayuunbaa yara taanigata oo farti qaaxoolajee musabixi wey. waaryaa maxaa garxajiskii halkaa joogana maa la isugu dhiibidhay inay iyagu iscalaashadaan baa fajiaa baa loo soo taxriijiyey. hayo weliba xilligii diiwaangelintu bilaabmatay baa loogu beeqay. waar ciyaaraha uu iska yaqaanaa ciyaaraha markay diiwaangelintu soo dhawaatay inuu mashaakil bilaabaan halkaasay ka bilaabeen miya halkaas iminka ka bilaabeen oo waxay rabaan dhowr siyaaboodba kow dadku inay kaga mashquulaan diiwaangelintan colaada laba in deegaanada qaar la idhahdo colaad baa ka jirto iskama diiwaangelin karo lama geyn karo waa la cisnaanaya meesha hoose gobolada bariga fog oo kale ay ka dhigaan oo niyo maxay gabiil colaadaa u geyn waaya inay oodweyne kala soo doonaan dee walaal gabidiiso isaga lagama doorto oodweyne waxa weeyaan mucaaradkaa laga dooranaya marka waa cadowga u arka doonaya markaa xadleed ogaan buu usii fogeynayaa dhe ogaan buu sii fogeynaya wuxuu rabaa inaan gooba doorasho badan inaan la geenin inaan cod badan markaa kan badha saabka ku magacaaban xaaladan cakiran ee dadkan qoryaha iyo aad sheegayseed leeday hubays la hor fadhiyaan muxuu u kala qaban waayey isaga shaqadiisu waa maxay nin badha saabka marka hore shaqadiisu waxay ahayd inuu dadka deegaanka ka odeeyo isu soo jiido laakiin iminka waxaa muuqata inuu sharwado yahay inuu qaswado yahay in waxa weeyaan uu furinayo amaradii musabixi iyo caanka ku ahaa qaska iyo isku dirka reeraha iyo madaxa in la isu geliyo kolba laba beelood iyo kolba meel dab laga shido ninku horta gobolka awdalba kasoo jeedaa laakiin waa nin jirecsan oo amarka musabixba ku shaqeeya iyna kaahin oo gobolka iyaguna rabo inay qasaan weliba xilligan xasaasiga ee doorashadu jirto ayay rabeen in aada u qasaan. marka labada aad ka dhawaajisay jilibadaas rasaasta isla hor fadhiya maxaad baaq u jeedinaysa? jilibadaas waxaan baaq u jeedinayaa iyo jilibada kale la walaalahaaba waxaan ugu sheegaya guud ahaan soo kala gaadha baan leenahay dadka inay dad wada dhashay yihiin baan u sheegayaa in deegaanku ka dhexeeyo inay runyar iska wada degaan inay cadow guud yihiin in xilligan xilli diiwaangelin lagu jiro oo guud ahaanba ay unagu tirsan yihiin oo iska dhiciyaan gobolada kale dhigooda gebiga iyo garatay dowladdu naasnoojinayso halka iyaguna isku sii jeesteen. markaa waxaan baaqa ugu jeedinayaa inay joojiyaan colaada dhexdooda una midoobaan dhexdooda sidii ay cod midaysan ula soo bixi lahaayeen deegaankana si isku mid ugu dagaalami lahaayeen laakiin aanay iyagu isugu dagaalamin oo iyagu dhexdooda isku qabsaneen oo iska gartaan shisheeyaha cadowga shisheeyaha uu isugu soo dhiibiyo warmaan si fiican aad iyo aad baad mahadsantahay walaal waay adiga ma ayo